shir ay yeesheen madaxda dowladaha ku midoobay urur goboleedka IGAD kaasoo heshiis ay ka gaareen madaxda South Sudan. dowladda Soomaaliya ayaa waxaa shirkan ugu qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. shirka ayaa lagu soo gabagabeeyay xaflad ay heshiis awood qaybsi ah qalinka ku wada saxiixdeen madaxweynaha South Sudan Salva Kiir iyo ku-xigeenkii hore ee dagaal ku dhexmaray kaasoo lagu soo afjaray 5 sano dagaal ahli ah oo wadankaasi ka socday. heshiiska ayaa dhigay in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Koonfurta Suudaan uu ahaan doono madaxweynaha halka Masar Raaj oo ka mid waa madaxweyne ku-xigeenka uu ka mid noqon doono 5 madaxweyne ee wadankaasi. Axmed Ciise Cawad wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka mid ahayd dalalkii fududeeyay in heshiiskaas ay gaaraan dhinacyada isku haya Koonfurta Suudaan, waxaana wali jira in shirka urur goboleedka IGAD door muhiim ah laga qaadanayo khilaafka siyaasadeed ee xilligan ka dhex alowsan wadamada Koonfurta Suudaan iyo sidoo kale bariga geeska Afrika. shirka jildihiisa ugu weyn wuxuu ahaa colaadii ka jirtay South Sudan dalka beelaha jamhuuriyadda Koonfurta Suudaan. maanta ayaa heshiis lagu idlaynayo lagu dhamaystirayo oo lagu soo gabagabeynayo lagu soo afjarayo colaadaas la saxiixayay. arrintaas oo ururka IGAD uu horwadeen u ahaa ama isagu uu keenay oo ka shaqeynayay heshiiska